السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جانالكا قالين ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جانالكا وجانالكينا وقالين ميديا عاو وحنجعلهاي إنان كهدلو ركني كمد أركان إسلامكا ركني سدحات أو وإيتاء الزكاة oo in zakada la bixiyo gaar ahaan tan aan hadda ka hadlayno waxay tahay zakaatu alfitri ayaan ka hadlaynaa. zakaat alfitri sideedaba waxaa la waajibiyey sanadka labaad ee hijriyada waa sanadkii soonka la soome ee la waajib yeelay ayaa asagana uu waajib noqday. zakaat alfitri sida aad la socotaan waxay leedahay qaybo kala duwan oo aan rabno in aan hadda carabka aan ku dhufano. horta waxaan doonaynaa inaan qeexno si guud ahaan zakaatulfitri waxa ay tahay. xukunka zakaatulfitriga waxa uu yahay ma waajiba ma sunnaba muxuu ahaa mubaax ba wax la iska samayn karayaa. waad garanaysaa marka xukunku lagu leeyahay waa positionka uu ka joogo diinta, ma wax fudud ba ma wax adag ba ma wax la dhayalsan kara ba saa baa loola jeedaa xukunkeeda. xaddiga laga bixinayo zakaatulfitri ma wixii doona ayaa la iska bixin karaa, caagad biyo baa la bixin karaa ama 2 kiila baa la bixin karaa ama 10 kiila la bixin karaa oo cunto ceeriin baa la bixin karaa. waxay tahay inaan kala ogaano iyo xaddigeeda waa aragga saddexaad ayaan ku eegaynaa. tan afraadna waxay tahay waqtiga la bixiyo zakaatulfitriga ugu wanaagsan ma soonka kala barkiisa, soonka gudihiisa, soonka marka la bilaabayo markay dhammaato ciidda kadib goormaa la bixiyaa. taasna waxa weeyaan waynu ka hadlaynaa. sidoo kale xikmadda loo jideeyey ayaan iyadana aan ka hadlaynaa. xikmadda markaan leeyahay waxay tahay ujeedada oo Allah subxaanahu wa tacaala uu ka leeyahay zakaatulfitriga in ay muxuu ahaay uu dadka ugu waajib yeelay inay bixiyaan. haddaba aan u gudubno xukunka koowaad oo ah qeexidda zakaatulfitriga. zakaatulfitriga horta haddaan ka hadalno horta wax sidaa usii weyn ma aha. waa mar walba waxa laga hadlaya fitriga weeyaan. zakada laftirkeeda laga hadlaya. zakada marka laga hadlaya waa xaddi badar ama raashin ka mid ah sida qaalibka ahna quutaan reeraha magaalooyinka degan ama reeraha xilliga magaalooyinka qofku uu ku nool yahay ee sooman ee dega. xaddi ka mid ah badarka ama raashinka ayaa waxaa loo yaqaanaa zakaatulfitri ama haddii la waayo bedelkeeda oo ah lacag u dhiganta qiimaheeda ah. taas baa marka horta waxaa la yidhaahdaa zakaatulfitr baa la yidhaahdaa. taasna marka waxaa laga doonayaa zakaatulfitrigaas aad arkaysaan qofka zakada lagu leeyahay ayaa laga rabaa. wuxuu qofka ka bixinayaa zakada nafsadiisa. number koowaad asaga ruux ahaantiisa ayaa iska bixinaya ilaan qofka zaka ayaa ku waajib ah. asagaa laga rabaa marka ugu horeysa horta inuu zakadaas iska bixiyo. kadib waxaa soo lamaynaya dadka uu mas'uulka ka yahay ee ku waajibtay ee dushiisa saaran tahay nafaqadooda inuu nafaqeeyo ama ha ahaadaan caruur walaalihiisa yar uu kafaalo qaaday, hooyadii ha ahaato, gabdho walaalihii la dhashay ha ahaadaan, walaalihii kale ee ka yar ha ahaadaan, ama qof ha ahaada caruurtiisa iyo faamiligiisa la nool, ilmihiisa, xaaskiisa, ama ha ahaado aabbo oo ilaa ay awowgii ilaa ay reer oo dhan isku wada hayo oo asaga mas'uul uu ka yahay. marka dadka oo asaga mas'uulka qofka mar walba uu ka yahay nafaqadooda iyo biilkooda oo asaga gacanta ay ugu jirto ayaa waxaa la doonayaa qofka inuu zakada marka la gaaro maalinteeda nafsadiisana inuu ka bixiyo iyagana uu ka bixiyo. taas ayaa marka waxaa la lahaa zakaatulfitri lagu sheegayo waa taa. badanaana marka laga hadlayo bixinta wax la bixinayo waxaa waaye mar walba waxaa loo eegaa raashinka ama badarka magaalada qaalibka ah ee laga isticmaalo ayaa loo eegaa. nabigana calayhi salaatu wasalaam xilligiisa waxaa la bixin jiray timir iyo waxaa la bixin jiray sidoo kale shaciir waxa la yidhaahdo oo heeda ah iyo timirta ayaa xilligaa deegaanka nabiga calayhi salaam madiina uu joogay ayaa qaalibka ahaa dadka aad u isticmaali jireen laga bixin jiray. laakiin anaga waxaa la eegayaa halkan ku noolnahay. anaga ummad soomaaliyeed baan nahay. soomaaliya ayaan degannahay. meeshaan doona aan ka degnaano ama aan degnaano muxuu ahaa gobolada iyo deegaanada sida somaliland, hargeysa ama puntland oo kale joog ama kaga noolaaw muxuu ahaa jubbaland ma meeshaa doonto
oo dhul Soomaaliyeed ah kaga noolaa laakiin waxaad eegaysaa deegaanka waxa loo isticmaal badan yahay aadka loogu quuto ee dadka ka cunaan ayaa la fiirinayaa marka badarka anaga haddaan tusaale aan carab dhabo waxaa ka mid ah sida bariiska oo kale dadkeena aad ayay u isticmaalaan tusaale ahaan waxay aad u isticmaalaan galleyda oo kale aad bay u isticmaalaan haruurka aad bay u isticmaalaan sidoo kale digirta noocyadeeda kala duwan aad bay u isticmaalaan laakiin haddaad sii fiirsana bariiska ayaa qaalib ah marka wax badanaa la karsado dadka aad ay u jecel yihiin marka waxaan igula talin lahaa bariis oo kale in aad ka dhigtaan marka zakada sideedaba waa noocaas waxaas xadka sheygaa baa la bixiyaa sheygaana waa quudka ayuu ka mid yahay arrinka labaad waxaan wax ka eegaynaa xukunka zakada xukunkeedu muxuu yahay ma wax iska sunnaa haddaad ka tagtana aadan dembi ku lahayn ajir keliya ku dhaafay ma wax iska banaanba oo ajirna aan ku dhaafayn waxbana aan lagu qabsanaynin mise waa wax xaaraan ah mise waa wax muxuu ahaay makruuh ah ee la dhibsado ama waa waajib ama waa fardi haddaba zakaatu fidriga waa waajib weeyaan qof walba waajib ku yahay qofkii ka tagana dembiilo waay dembi baa kasoo gaaraya uu qofka muslimka oo dhan waajib buu ku yahay waxaana laga doonayaa inuu uu ka bixiyo zakadaas nafsadiisa iyo sidoo kale cidda ee nafaqadiisa ku waajibto inuu ka bixiyo ayaa laga doonayaa zakadaas taasna liskama oran waxaa laga raacayaa mar walba sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar allaha ka raali noqdee wuxuu soo warinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu kasoo warinayaa wuxuu leeyahay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam xaqiiqda waxay tahay in rasuul alle naxariistii nabadgelyo dushiisa ha ahaatee farada zakaata alfitri min ramadaana cala annaasi wuxuu ku waajib yeelay zakada in la bixiyo ee fitriga ah bisha ramadaan dadka ayuu ku waajib yeelay saacan min tamarin waxaa weeyaan saac min tamarin saacan oo kala galaan ayaan dhahnaa galaanka lagu miiso badarka uu kala weyn yahay cabir buu kala leeyahay kaas baa saaca loo yaqaana aw saacan min shaciirin ama galaan oo ah heed ayuu nebiga oo amri jiray dadka uu waajib kaga dhigay calaa kulli xorin qof kastoo xor ah oo addoon aanan ahayn oo cabdin iyo addoon kastaa dhakarin lab ah oo unthaa ama dhadig ah min almuslimiin maalinta ramadaanta marka la gaaray inay bixiyaan culimmada waxay yidhahdeen zakaatulfitri waxa loo yidhaahda fitrigaa loo soo qaata laba arrin oo macnaheeda ay tahay bisha ramadaan ee la soonnaa ayaa la furayaayoo ciidi baa la gelayaa sidaa darteed baa loo bixinayaa maadaama marxalad laga gudbayay dadka qaarna waxay yidhahdeen sidaas ma ahine waa zakada ku tacalluqda khalqiga iyo abuurkaaga oo jasadkaaga iyo jirkaaga kafaaro gud aad ku samaynayso taa doontaba ha ahaatee waxaa weeyaan zakada waa mid loo baahan yahay in la bixiyaa oo muxuu ahaa xukunkeeda waajib yahay qof ka tegi kara qofkii hore kaga tegi jiray waxaa ha ka toobad keeno maanta wixii ka dambaysana ha bilaabo inuu zakadaas uu bixiyo